guddiga maaliyadda miisaaniyadda iyo qorsheynta la xisaabtanka hay'adaha dowladda wuxuu ku jiray howlihiisii iska caadiga ahayd oo iska maalinla ahayd. maantana maartin waxaa noo yimid oo qolo ka socoto World Bankiga waxay noo sharxayeen siyaabaha ay u shaqeeyaan iyo deeqaha maartin dowladda ay siiyeen qaabkii maartin guddiga maaliyadda oo korjoogteynta uu ku leeyahay. sharaxaad dheer kadib waxyaabaha maartin aan isla garanay maartin kamid ah si joogto ah maartin in la iskula shaqeeyo oo ay nala soo wadaagaan xogaha maartin ay ayagana maartin ay hayaan annagana maartin ka guddi ahaan xogaha aan hayno inaan isweydaarsano si at least ay u noqoto maartin wax oo miro dhala ay u noqdaan. maadaama maartin World Bankiga uu ka shaqeeyo bankiga adduunka uu ka shaqeeyo arrimaha maaliyadda wadamada dhan caalamka arrimihiisa maaliyadda maartin uu ogyahay. waxyaabaha maartin uu nasiyeyna kamid ahaa dhaqaalaha dalka meelaha uu marayo iyo Soomaaliya xilliga maartin miisaaniyadda ay bilowday budgetba maartin ay bilowday waxay ahayd la dejiyeyba burburkii kadib 2003 2013 wixii ka dambeeyay markaa waxay u soo koreysay maartin qayb marba maartin sanadka u dambeeyay maartin budgetka uu soo korayay 13 bilowgii yar bay ahayd 14 qayb kale ahayd maanta maartin aan u soconana in 2019 la galan asagana saas oo kale marka waxay ahayd dhaqaale oo iska soo bilowday oo maartin soo korayay bay ahayd. marka runtii waxyaabaha maartin aan isla garanayn amba ay noo sheegeen aad bay maartin muhiim ay u tahay in oo maartin dalka loo shaqeeyo oo in wixii maartin dalka danta u ah in laga shaqeeyo maartin muhiim u ah. annaga ka guddi ahaan waa isla qaadanay in waxyaabaha danta dalka u ah in laga shaqeeyo waxyaabaha oo maartin mugdiga keenayana maartin laga fogaado si oo hufnaanta ay u timaado maadaama maartin golaha shacabka ay matalaadii shacabka ay yihiin qayb kamid ah ay shaqadooda ay tahay dakhli walba ama dhaqaalo walba meeluhu ka imaanayo inay ogaadaan ay korjoogtaan ay waajibkooda tahay. marka taasaa ugu muhiimsan in oo ishaqeeyna golaha shacabkana isagana inuu waajibaadkiisa saas ugu guto. xukuumaddana maarta waa idimihii baarlamaanka waaye baarlamaanka u igmiday in howlahaas ay ka shaqeeyaan. markaan howlaha meelaha ay shaqada ay hayaan labs ahaantooda waa qayb kamid ah in la ogaado iyo ilaha dhaqaale meelaha kasoo galayaan la ogaado iyo qayb walbo amba dad walbo maarta dhaqaale siiyo inuu guddiga amba baarlamaanka la socdo waa waajibaadkiisa kamid tahay. marka waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin guddiga sharafta leh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.